السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمركلة سود وهذا أدي هذا ومهتسنتهين ما أنت وأربعه وأنا سدح دبيش اللي حاد جون سنة كلابدا كون إيو اللحية لباتنك مقال كانوا حربا إن ندو كل وداقو doorashooyinka Israareebka oo loogu diyaar garoobay doorashooyinka xilliga dhexe ee November dhamaadka sanadkan dhacaya ayaa shalay 6 gobol oo gobolada Mareykanka ka dhacay laakiin midda sida weyn loo eegayo waa tartanka loogu jiro gudoomiyaha gobolka California iyo waliba duqa magaalada Los Angeles doorashooyinka kale oo la eegayo waxa kamid ah sidoo kale dhinaca sanadka iyo waliba gudoomiyaha gobolka Iowa iyo sidoo kalena tartanka aqalka sanadka ee gobolka New Jersey haddaba doorashooyinkaas ayaa soo baxay gobolada ilaa iyo hadda tirinta codadka socota yaa horeeya ayaan idinla wadaagaya sidoo kalena shalay waxaa jirtay in maamulka Trump gabi ahaanba ay baabi'iyeen lacagtii 1.8 bilyan ku dhaweyd oo ay ugu magac dareen anti-weaponization fund oo loogu talagalay Trump maamulkiisa inay siiyaan dadka ay sheegeen in ay si xun ula dhaqantay dawladii hore ee Biden uu hogaaminayay amaba la xiray amaba la maxkamadeeyay cadaadis dhinaca xisbiga Republicaanka xubnaha Congress-ka ku jira Trump ugu yimid darteed ayaana shalay kusimaha wasiirka cadaaladda Todd Blanche waxa uu Congress-ka u sheegay in hadda gabi ahaanba ay joojisay wasaaradda cadaaladda in lacagtaasi horay ay ugu sii socoto wasaaraddu isla markaana dadkii la sheegay la siiyo arrintaasina sidoo kale waan idinla wadaagaya balse marka hore waxa toddobaad kasta ama bil kastaba ka dhacaya doorashooyinka Israareebka ee loogu diyaar garoobayo doorashooyinka xilliga dhexe ee bisha November ee dhamaadka sanadkan ka dhici doona guud ahaanba wadanka Mareykanka marka shalay waxay doorashooyin ka dhaceen 6 gobol oo kamid ah gobolada Mareykanka goboladaasina waxay kala yihiin New Jersey, California, New Mexico, Montana, South Dakota iyo waliba Iowa laakiin gobolada sida aadka loo eegayo waxa kamid ah gobolka California tartanka loogu jiro gudoomiyaha gobolka iyo waliba tartanka loogu jiro duqa magaalada Los Angeles oo ah magaalada labaad ee ugu weyn wadanka Mareykanka dhinaca tartanka gudoomiyaha gobolka haddii aan eegno labada xubnood ee ugu sareysa iyadoo tirinta codadka hadda wali ay socoto laakiin walina aan codadkii tirintoodii la soo gabagabaynin labada xubnood ee ugu sareysa ayaa tartanka gudoomiyaha gobolka oo ku tartami doona marka November la gaaro hadda waxaa hogaaminaya Steve Hilton oo horay warbaahinta uga shaqeyn jiray gaar ahaan Fox News oo Trumpna uu taageeray oo 27.8% ku hogaaminaya waxa kaalinta labaad ku jira Javier Becerra oo horay u noqday xiriiryaha guud ee gobolka California isla markaana wasiirka caafimaadka ka ahaa dawladii madaxweyne Biden uu hogaaminayay isaguna 25.4% ayuu haystaa waa dimuqraadi Tom Steyer oo isaguna nin ganacsada ah isla markaana dimuqraadi ah 19.6% ayuu haystaa marka tirinta codadka wali waa ay socotaa Republicaanka ayaa hadda hogaaminaya labada xubnood ee u sareysa ayaana November waxay ku tartami doonaan gudoomiyaha gobolka California qofkii bedeli lahaa Gavin Newsom oo 8 sano ee la soo dhaafay gobolkaasi California hogaaminayay tartan kale oo adag ayaa sidoo kale waxa uu ka jiraa duqa magaalada Los Angeles oo ah magaalada labaad ee ugu weyn wadanka Mareykanka Karen Bass oo hadda soo ahayd duqa magaalada ayaa hadda hogaaminaysa oo 35% haysata waxaana la tartamaya nin la yiraahdo Spencer Pratt oo horay isaguna filimada gaagaaban ee uga soo shaqeyn jiray sanadihii 2000 isaguna 30% ayuu haystaa marka Spencer Pratt waxa gurigiisa uu ku gubtay dabkii xooganaa ee bishii January ee sanadkii 2025 ka kacay qaybo kamid ah gobolka California waxaana sidoo kale uu sheegay guriga la'aanta ka jirta gobolka California in uu wax ka qaban doono ilaa iyo 40,000 oo qof oo guriga la'aan ah ayaa ku nool gobolka California marka Karen Bassna waxay doonaysaa in iyaduna ay kursigeeda xajisato sidaas darteed ayaa hadda labadooda ayaa ugu sareeya walina tirinta codadku waa ay socotaa haddii labadoodu ay ugu sara maraan iyaga ayaa November tartami doona oo ku tartami doona qofkii noqon lahaa duqa magaalada Los Angeles gobolka Iowa sidoo kale waa gobol Republican ah laakiin waxa ay dimuqraadiyiintu doonayaan in gudoomiye gobol ay ka noqdaan hadda waxa isku soo baxay Zach Lan oo Republican ah iyo waliba Rob Sand oo dimuqraadi ah ayaa iyaguna November tartami doona sidoo kalena aqalka sanadka ayaa dimuqraadiyiintu ay doonayaan inay kursi ka helaan gobolka Iowa Ashley Hinson ayaa dhinaca Republicaanka u soo baxday waxaana la tartami doona John Turek oo isaguna dhinaca dimuqraadiyiinta
uu soo baxay. Dhinaca New Jersey haddii aan eego waxaa jira dhinaca Republikaanka aqalka sanadka Justin Marby ayaa u soo baxay waxaana la tartami doonaa Cory Booker oo hadda kursigaasi ku fadhiya oo isaguna dimuqraadi ah. Marka doorashooyinkan isla reebka waa la kala baxaya markaasi kadib xubnaha isku soo hara November ayay tartamayaan. Halkaasi ayaana hadda la kala maraya dhinaca California weli tirinta codadka tartanka gudoomiyaha gobolka labada xubnood ee codadka ugu sareeya hela ayaa doorashada November u soo gudbi doona halka sidoo kalena dhinaca maayarka magaalada LA ama Los Angelesna labada xubnood ee u sareeyo hadda Karen Bass iyo Spencer Brada haddii ay ku dhameystaan labada xubnood ee natiijada ugu sareysa hela codadka iyaguna ay u soo bixi doonaan November labadoodu ay tartami doonaan oo duqa magaalada Los Angeles ay ku tartami doonaan. dhinaca kale labadii toddobaad ee u dambeysay waxaa buuq weyn Mareykanka gudihiisa ka dhaliyay heshiis uu sheegay madaxweyne Trump in isagu intuu isdacweeyay haddana uu isla heshiiyey maxaa yeelay dowladda dhanba madaxweynaha ayay ka bilaabataa isaga ayaa waxa uu dacweeyey IRS-ta iyo wasaaradda cadaaladda markaasi kadibna waxa uu yiri haddana waan la heshiiyey waxaana uu sheegay in dacwadihii uu ku soo oogay tii 10 bilyan ee IRS-ta iyo tii 230 milyan uu ku soo oogay wasaaradda cadaaladda gabi ahaanba uu baabi'inayo laakiin uu doonayo in la sameeyo sanduuq lagu ridayo ilaa iyo 1.8 bilyan oo dollar oo magdhow ahaan loo siinayo dadkii maamulkii Biden uu maxkamadeeyay amaba uu xabsi geliyay dadkaasina waxaa ku jiri kara dadkii xarunta Congress-ka weeraray bishii January 6 sanadkii 2021 oo qaarkood xitaa xisaabaha isku dhufsadeen ay yiraahdeen war aniga 30 milyan igu soo aadaysa aniga 40 milyan igu soo aadaysa aniga intaasoo milyan igu soo aadaysa arrintaas marka xubnaha Republikaanka ayaa madaxweyne Trump uga soo horjeestay waxaa jirta xitaa isniintii in afayeenka aqalka wakiilada Mike Johnson uu Trump kula kulmay aqalka cad isla markaana uu kala hadlay sida lacagtaasi gabi ahaanba loo baabi'in lahaa haddaba shalay kusimaha wasiirka cadaaladda Todd Blanche ayaa waxa uu hortagay Congress-ka arrimahaasi ayaana su'aalo laga weydiiyay hadda waxa uu sheegay maadaama maxkamad ay ku amartay wasaaradda cadaaladda in lacagtaasi aan account-kaasi haddii ay ku jirtana laga bixin karin account kalena aan loo wareejin karin jimcihii la soo dhaafay waxa uu Congress-ka u sheegay in gabi ahaanba wasaaradda cadaaladdu ay joojisay in lacagahaasi horey loogu sii socdo waxa uu yiri horta guddi la sameeyo ma jiro isla markaana lacag lagu shubay account ma jirto ilaa iyo hadda arrintu waxay ahayd hindise ama qorshe la soo jeediyay dad soo dalbadayna ma jiraan lacagahaasi ilaa iyo hadda sidaas darteed waxa uu yiri wasaaradda cadaaladdu way u hoggaansamaysaa amarkii maxkamadda garsooraha maxkamadda federaalka ka soo baxay isla markaana waa ay joojinaysaa lacagahaasi in ay horey ugu sii socoto gabi ahaanba waxaa muuqata marka maamulka in uu dib u gurasho ka sameeyay kadib markii cadaadis xoogan uu ka soo fulay xisbigiisa Republikaanka ah in lacagtaasi aysan sii wada karin maadaama lagu tilmaamay mid sharci darro ah sidaas darteed ayaa kusimaha wasiirka cadaaladda waxa uu yiri gabi ahaanba wasaaraddu waa ay joojisay in lacagtaasi ay horey ugu sii socoto haddaba waa kan shalay markii xubnaha Congress-ku ay arrimahaasi su'aalo ay ka weydiinayeen. Mr. Attorney General, I wanted to ask a few questions about the anti-weaponization fund. We know that the department has agreed to pause this effort until at least June 12th. I wanted to ask what your plans were for the fund after June 12th. So thank you. So look, we're not moving forward with the fund. You're right that there's a date that in the case in the East District of Virginia in June, but we are not moving forward with the fund, period. The reasons for the fund is something that President Trump talked about for a long time, which is the fact that there were a lot of people in this country who had their government weaponized against them. The reasons for the fund, I think, it remain as important as they were before, but we are not moving forward with the fund. Oh, not moving forward ever? Correct. Oh, there's no more fund then? Well, to the extent there was a fund, and remember the fund wasn't set up yet. There were no commissioners named. There was no claimants brought anything in front of. There was no claims made yet. So yes, we're not moving forward with the fund. هذه هذا ما حسنتين أصحابتي أنت مركلة كل مدونه وصاحبك علم ورويد الله السدائي نبت قليل.